السلام عليكم halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada haddii aad jeceshahay horumarkeena fadlan channelkan subscribe inoo dheh kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad waad ku mahadsan tahay booqashadaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشينا قيمها يقايها نغمض ميل با joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub muuqaalkan waxa uu qayb ka yahay taxanihii MSWR 2010 waana cashirkii afraad balse intaan cashirka guda galin waxaan ka codsanayaa haddii aad tahay qofka cusub channelka inaad subscribe marka hore inoo dhahdo haddii aad ka hesho muuqaalkan aad like inoo saarto haddii aad jeceshahay in aad faallo iyo talooyin noo soo jeedisana aad qaybta comments-ka noogu reebto haddii aad la jeceshahay asxaabtaada inuu muuqaalkan sii gaarana fadlan u sii share garee waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan إن شاء الله عشر كان وحنكون بردونا qaabka loo isticmaalo quick access toolbar iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin waxyaabaha ku jira marka hore aan soo kicino word cusub laba qaab waa loo soo kicin karaa in aad halkan ka abuurto isla markaana aad ka doorato new kadibna aad samayso Microsoft Word document ama in aad tagto qaybtan loo yaqaano start menu kadibna aad ku qorto qaybtan searching-ka ah Microsoft Word kadibna waa ka ku soo baxay iminka ka ku dhufo oo double click si waa kan iminka waa ku soo kacay hadaba qaybtan insha Allah waxaan ku baran doonaa faahfaahin ku saabsan waxa loo yaqaan quick access toolbar iyo waxyaabaha ku jira qaabka ay u shaqeeyaan marka hore waxaan ka bilaabaynaa waxa loo yaqaan save waxa loogu talagalay in uu kaydiyo dokumentiga iyo waxyaabihii aad abuuratay isla markaana lagu xafido taa waxa ka horeeyo maadaama wordkan iminka aan soo kicinay uuna lahayn wax position ah ama goob cayiman aan ku abuurin marka hore waa in horta isaga aan save gareynaa waxaad timaadaa qaybtan loo yaqaano file halka ku dhufo kadibna waxaad ka doorataa qaybtan loo yaqaano save as halka ku dhufo kadib documentigaaga magac u bixi tusaale aniga waxaan u bixinayaa cashirka afaraad oo kale kadibna waxaad doorataa halka lagu kaydin lahaa tusaale waxaan rabaa inaan ku kaydiyo desktop-ka oo kale halka kor u soco kadib desktop-ka ku dhufo kadibna halkan save ay ku qoran tahay jogsi iminka waa lagu kaydiyay maxaa ku cadeynaya marka lagu kaydiyay waxaad fiirsaa qaybtan loo yaqaan title bar ciwaanka documentigayna waa cashirka afraad okay tusaale waxaan rabaa iminka inaan qoro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas yar aan qoray haddii aanan kaydin oo dhumaysa tusaale maxaan ka wadaa tusaale haddii wordkan aan iska xiro iminka oo aan halka kaliya ku dhufto waxa halkan lagu soo qorayaa ma doonaysaa in la kaydiyo isbedelka aad ku samaysay cashirka afraad dabcan kana waa save waana kan aan baranayno haddii aan rabin halkan ayaa ku dhufanaya haddii aan maxaa u lahaayay sayfin marka waxa lumaya dhammaan documentigii aan abuuro dhan qaamaka si looga badbaado halkaas ayaa taabanaysaa markasta oo ah save inaad dhaxdo ama inaad isticmaasho shortcut loo yaqaano Ctrl+S okay qaybtan xigta waxa loo yaqaano oo undo waxa loo yaqaan qaban waana macnaheedu waxa weeye in aad dib ugu laabato halka aad ka timid tusaale maxaan ka wadaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أنا قارن كهر دوكومنتيجو إبرة يوها هذا هدي عن جربه إن عندي بقول لابط هالكاس تمايات كله فنيسة ويما كواد ركتا وحماشة كبحي قال كيني أما دوكومنتيجو نقرنا مركا قيبت الله يقان أندوغا وإن أو حبل لقبا شقد اللقبت إن دب لوغ لابطو أو دب لوغ لابط هالكا شقد لقصوا بالله إبرة هيت هذا بقى أندوغا مركا أدفونيسو laba qaab ayaad u fulin kartaa inaad halkan calaamada ah taabato ama inaad isticmaasho shortcut loo yaqaano Ctrl iyo Z isla qabo kadibna insha Allah waxaad arkaysaa in aad documentigii halkii aad ka soo bilowday dhaqaaqa ugu dambeeyay in maxaa lahaayay lagu geeyo tusaale ka soo qaad hadda qoraalka hadii aan badino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal ku soo dhawow halkan oo kale
ayaan qoray waxaan rabaa marka inaan tijaabiyo qaabka u shaqeynaya undo hadda haddii aan taabto control z maxaa dhacayo waad aragtaa dhammaan waxaa lumay qoraalkii iminka assalaamu calaykum ka dambeeyo dhan mar control z shaqeeyada marka waxay tahay in aad dib uga laabato waxa aad iminka aad sameynayso dibna ugu laabato meesha aad ka timid qaybtan kale ee loo yaqaano redo waxa dib u qabo hawsha hadda aan baabi'inay oo aan dib uga soo laabanay dib ugu laabo okay haddii aan taabto maxaa dhacayo waxaa soo laabanaya qoraalka iminka iga lumay oo wax yar ka hor aan baabi'inay haddaba qaybtan redo loo yaqaano ayadana shaqadeeda waxa ay tahay wax kasta oo aad qortay oo aad dib ugu laabatay in aad dib ugu soo laabato halkii qoraalka uu ku marayay aysan waxba ka lumin okay marka haddii markastaba adigu qoraal dhex ku maraayo oo inta qof gadaasha intuu yimaado qoraalkii ka tirtiro ka masaxo isagoo wax uu ku furan yahay haddii aad rabto inaad dib u soo celiso qoraalkaagii markasta waxaad isticmaashaa qaybtan loo yaqaano redo oo hadib igu soo celi wixii laga baabi'iyay marka isagana laba qab ayaad u fulin kartaa in aad isticmaasho wax loo yaqaano calaamadaas oo kor ku taalo sumada imika waad aragtaa madaxeeda dabcan waa inaad dib ugu laabato halkii qoraalka ugu dambeeyay uu ku joogay waaye haddii aad rabto calaamadaas ayaa taaban kartaa haddii kalena waxaad taaban kartaa wax loo yaqaano shortcut ayaad isticmaali kartaa oo ah control iyo control y isticmaali kartaa waxaad dib ugu laabanaysaa qoraalkaagii meesha uu ku marayay haddii aad jeceshahay inaad dib ugu laabato bilowgaagii horena waxaad isticmaalaysaa wax loo yaqaano control z haddii aad jeceshahay inaad kaliso dhammaan qoraaladaada iyo dokumentiyadaadana waxaad isticmaalaysaa wax loo yaqaano save waxaan rajaynayaa casharkan inaad ka faa'iidaysateen in badan aad ka barateen qaabka loo isticmaalo Quick Access Toolbar iyo waxyaabaha ku jira muuqaalka xiginta ku kulmi doono waa walaalkeen Cabdirasaaq Cabdullaahi oo idinku dhaafay sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh